نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وحلقة وريي وحديث صحيحة كسوغان إنه يلي صدح الروح أرنكوضا هورصنين هويدين يعني خساره ذي هلاك قوضو بنانكو يالا واسكعديه وحليس ويديا ما وقرح صوبح ذي صدح ذا الروح هلاك قوضو حقيقية الدنيا آخرة إني خسارين ككوباد النبي قول صلى الله عليه وسلم وأنكو هيسته الله تبارك وتعالى صفاتك سو خاص كليه صفة الكبرياء كبرك إيا عظمضة إيا صفة عزة نينك إلهي كو هيست شده وحال قوضا إلهي بي خاص ليه هنا أذوقنا إنات شيغتو إسلوينا إيا كبر إنات شيغتو والروحك وبادوه صوبت وحويان الله تبارك وتعالى أساق كلي جيبا للكبرياء عزقنا أساق كلي جيبا إسكاله عدو إساقو عزيه وأدومدي سكمي ذا كذب عزاله هداد وحادنا هاي المركة إسكاليكتو وحادنا هاي نآد اسمودو meedaadan gaadhsiisnayna aad isgaadhsiisood is-afuufto ilaahayna tabaaraka wa tacaala wixii gooni u ahaayee uu lahaa aad ku qabsato oo aad sheegato shaki kuma jiro inaad halaagsamayso qadarkaagiiyo tabartaada garo inaad addoon tahay garo inaad miskiin tahay ictiraaf inaadan shalay joogin oo lagu keenay adigoo qaawan ictiraaf inaadan maanta waxba ahayn qir oo ictiraaf in berri waxaad noqon doontaa aadan garanaynin ictiraaf waxba yayna ku wareerinin kursiga iyo boqortooyadu xoolaha iyo hantidu caafimaadka iyo ladnaantu yaysan ku lugoynine innamaa anta cabdun daciif addoon waxaad tahay tabar daran miskiin ah سيدكو كبريسة نبينا صلوات ربي والسلام عليه كما في صحيح مسلم أيا وحويلي روحي قلبي جيسا أي كتشرته وحير وذرة ذرة وقران شذا يريركا أما وحينا إيشو بقبان كريم واي قدر انت لأغو كبير روح قلبي جيسا كتشره إلهي تشند مقليو روح جنة لو ديدين النار باهوي اوه نين باوحو لرسول الله يوم روح وحو جعلي هاي إني مردي سنة قرحسن تاي كبوهي سنة قرحسن يهين روح البواسكة جعلي وقلبي واكا جرتا اسقرحي ودر قرحسن إيا كبا قرحسن إيا قاضو النبي قحوري صلوات ربي والسلام عليه معنو ساسمه الله تبارك وتعالى وقرح سيه قرح ذنا واتشعليه كبيركم معها معناها إن الزينة إيه قرح ذا إلهي كوبني إن القاضتوت إس قرح كبير ما قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الله تابني أدمدي سأوف الصحي كبير محل يدا مر نبي قال حي صلوات ربي والسلام عليه الكبر بطر الحق وقمط الناس كبير وحل إلى هذا إن آد حق مركو كو عداده أديده سلويناته سويني سيسو آيات قرآن حديث نبي إجماعي أمضى حقي با كو عدان البنان كو يالا مركزات إسكبريسو انتا إسقاده بأديدو ترمايا كما تشيرو كبيراني بات كبيراني وانينكا حق عدي ديوه كبيراني قال لبادي وحويان والروح ضدك يسيا ضدك حقيرا ضدك يسا
wuxuu rumaysan yahay inuu dadka ka sarreeyo waa iskala weyn yahay inuu nasab kaga fiican yahay abtir inuu xoolo kaga fiican yahay oo kaga sarreeyo inuu kursi iyo jago kaga sarreeyo inuu magac iyo shuhro kaga sarreeyo waxay u la tahay inuu dadka ka fiican yahay ama qaar ka midaba ka fiican yahay hada huwa aynul kibri kibirani waay ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala adoomadan waxaanu uu qaybiyay isagu kala siiyay midba qayb ka siiyay midna qadiyay allah baa maamulay tabaaraka wa tacaala adigu ma aadan keensanin waxaad ku leedahay baa iska yar allahna tabaaraka wa tacaala in badan oo tabar yar oo masaakiin ah oo hoos u fiirinayso baa ilaahay agtiisa ka karaamo badan rubba ash'atha aghbar law aqsama ala allahi la abarrah dad waxaa jira iska masaakiin ah madfuuc bil abwaab ay ka muuqato diiftu ka muuqato iska rafaadsan basaas fara badani ka muuqato irida aan laga furaynin ilaahay agtiisana karaamadu ku leeyahay hadduu dhaarto maanta yiraahdo wallahi inay sidaa noqon allah waa u rumaynaya tabaaraka wa tacaala siduu sheegay bay noqonaysaa marka miisaanku ma aha xoolaan haystaana ma aha magac baan leeyahayna ma aha kursi baan ku fadhiyaa ma aha miisaanku waa miisaan kale wey sidaas daraaddeed inaad iskibristo dadka yastood xaqirto wax ilaahay ku siiyeyna aad u sababsato oo ilaahay dheeraad ku siiyey ma aha arrintu inaad hoos isu dhigto waay nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii kor isu qaada ilaahay baa dhulka dhiga waa sunno ilaahay waxay ku timid nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qaalin wuxuu lahaan jiray uu gaadiidoo uu fuuli jiray qaalin aad u dheereeyuu ahaan jiro lagama hormari jiray nin reebaadiyo acraabiya qaalin intuu la yimid buu ka dheereeyey qaalinkii nebiga sal alla alay wasalam saxaabadu waa xanaaqeen maantaaba qaalinkii nebiga laga dheereeyey macquulba maaha markaasaa nebigu wuxuu leeyay sal alla alay wasalam wardaaya buuhi shay kor isu qaada oo meel isgaadhsiiya ma jiro ilaa ilaahay hoos buu u dhigaa tabaaraka wa tacaala wiilis waalaba waabiyaa hela yacni saad u nagnag leedahay sunanka ilaahay waxa weeyaan in dhulka lagu dhigo waayo leanna waxaadan lahayn iyo meelaadan gaadhsiinayn baad isgaadhsiinaysa kibirka marka iska daayo hoos isu dhig cagsi waxa ah man tawaadaca lilaahi rafacah ruuxii ilaahay dartii isu liida hoos isu dhiga ilaahay baa kor u qaada magaciisa maqaamkiisa adduunkiisa aakhiradiisa ilaahay baa kor u qaada saas daraaddeed qadarkaaga garo oo miyaynu xaq u leenahay walaalayaal oo miyay gar nugu tahay inaan isweynaysiinno qadarkeenna garan weyno u fiirsada asalkeenna waxaan ka soo jeednaa dhibic mani ah oo uraysaynu ka soo jeednaa hadda aynu nool nahay oo xoog badan nahoon faanaynoon ordaynana wax urayaynu caloosha ku wadannaa akhiiran marka ugu dambaysana bakhti urahayo qabriga loo jiido baad noqon doontaa war xaggee kibir kuu yaallaa billaahi calayk xaggee kibir kuu yaallaa isla weynan kuu yaallaa maad isgaratid sidaas daraaddeed allah tabaaraka wa tacaala khasiisadiisa iyo sifaadkiisa ciddii ku qabsataay waa halaagsantay qodobka labaadii waxa weeyaan ama ruuxa labaadeen isweydiinta lahayn inuu halaagsamayahay nabigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa ruux ka shakisan ilaahay amarkiisa ilaahay jiritaankiisuu ka shakisan yahay waa zindiiq mulxid ah oo ma ilaahay jiritaankiisaa laga shakin karaa allah wuu tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi afillaahi shak war ma ilaahay baa shaki ku jiri kara ma suurtagal baa ilaahay jiritaankiina iska shakido faatiri samaawaati waalard dhulkan aad ku dul taagan tahay isagaa abuuray samadan ku hadhaynaysay kaa koraysana isagaa abuuray allaha buuraha taagay oo samada abuuray oo dhulkan fidiyey oo badahan sameeyey oo adiga laftaada sidan isu kaa saaroo ku rakibay miyaad ka shakin kartaa beddelkaad isaga ka shakinayso naftaada ka shaki waa ruux ka shakisan dhulkan jiritaankiisa samadan jiritaankeeda qoraxda jiritaankeeda isaga jiritaankiisa ka shakisan waa
markaad ka shakido allah bimacnaa adaa iska shakiye waay maxaa yeelay sida qur-aanka kariimku inoo sheegay suurtagal ma aha shaygu inuu iska yimaado isagoon wax keenay jirin wuu iska yimid wuu iska dhacday waan iska abuurmay ma dhici karto waxaan kaloon suurtagal ahayn inaad adigu lafahaaga abuurtood iskeentayna ma dhici karto sababtu waxa weeye shay aan jirin isma jirsiin karo isagu waxaa soo hadhay marka keliyeeta inuu jiro cid jirsiisay oo abuurtay makhluuqaadkanoo keentay yay tahay allah tabaaraka wa tacaala yaa kale am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaquu asamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun jiritaanka rabbi tabaaraka wa tacaala marka shaki ma geli karo ruuxa ka shakaysani waa axmaq aan caqli lahayn oo garaadku iyo garashadu ka maqanta mar labaad dadka qaarkood waxay ka shakinayaan ilaahay maamulkiisa iyo kownkan inuu leeyahay oo waxaa shaydaan qalbigooda gelinaya ilaahay kownkan waa lala maamulaa ayaduna wax jira meehe caqligaaga markaad ku noqoto kownkan sidaa u nadaamsan ee isku dubadhacsan ee sidiisii u socda ee aan isbedelin laba gacmood ma wada maamulayaan hal baa maamulaya hadday laba wada maamuli lahaayeen way isku qabsan lahaayeen kadibna way isku layn lahaayeen kadibna kownkan oo lala kala tagay oo la kala jiitay baynu arki lahayn dhulkii oo dhinac u dhaqaaqay oo samadii mid la tagay oo sida bini aadamka iyo makhluuqaba aynu aragno markuu awood leeyahay laba isku awooda markay meel ka taliyaan laabudda waxa weeye inay islaayaan islama jiri karaan oo meesha ma wada wadi karaan sidaas daraaddeed allah tabaaraka wa tacaala kelinimadiisuna waa waxaan shaki ku jirin waxaa kaloon shaki ku jirin mar haddaad intaa qirto kownkan markuu ilaahay abuuray bilaash uma daynine nidaamkii lagu maamuli lahaana waa soo dejiyo rusulla waa soo diray kutubna waa soo dejiray maxaa yeelay hadduusan soo dejinin wixii wuxuu iska noqon lahaa bilaash marka seebaad ilaahay arrinkiisa uga shakin kartaa amarka alle kiisa kawniga iyo kiisa sharciga wax laga shakiya ma aha warkuu kuu sheega waa run wax soo socda hadduu inoo sheegay shaki kuma jiro wax tagay hadduu inooga warramayna shaki kuma jiro hadduu axkaam inoo jideeyena cadaalad bay ku salaysan tahay sidaas daraaddeed ruuxa ilaahay amarkiisa ka shakisani isaguna waa halaagsamay leanna ama waa munaafiq ama waa gaal alla mu'miniinta wuxuu ku tilmaamay inayna shakiyin uma lam yartaabuu qalbigooda shaki ma galo ruuxaasina waa ruux halaagsan leanna waxaa la rabaa iimaankeenna inaynu ku dhisno yaqiin hubaal aan shaki ku jirin sax bini aadanka qalbigiisa marmarka qaarkood waxaa ku soo dhacdhacaya wax la yidhaahdo wasaawis ama khawaatir ama xadiiu nafs waxyaalo qalbigaaga ku soo duulduulayaa jira oo aadan qaadaninoodan cabbinoo rumayninoo aadan go'aansaninoo qalbigaagu uusan ku qancin laakiin kugu soo duulduulaya taasi waxa weeyaan qabasho ma leh haddaadan ku hadlin ama aadan samaynin lagu qaban maayo xadiiska nebigu sidaasuu ku cadiyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wasaawis shaydaan way taa shaki ma ah laakiin shakigu waxa weeye mabaadidii asaasiga ahayd jiritaankooda iyo saxnimadooda iyo khaladnimadooda inuu shaki kaa galo wa hada huwa alkufru bicaynihi waa gaalnimo taas ninka saddexaad ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu halaagayeen laysweydiinin halaagiis waa ruux ka quustay ilaahay naxariistiisa inta badani waxay ku dhacdaa dadka dembiyada badan ee dunuubta qasta shaydaanku marka hore dembiguu kugu ridayaa markuu kugu hubsadoo dembiga ku geliyo dhinac kaluu haddana kaa soo gelayaa wuxuu ku leeyahay ilaahay kuu dembi dhaafi maayo khalaas way kuu dhammaatay hadduuba kugu qanciyo ilaahay kuu dembi dhaafi maayo way kuu dhammaatay ood ilaahay naxariistiisa ka quusato bas waa ruux ilaahay naxariistiisa ka quustay waa ruuxay u dhammaatay sidaas daraaddeed baa rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu igu nugu leeyahay addoommadaydii xumaanta iyo dembiyada sameeyeyow naftooda ku xadgudbayow naxariista alle ha ka quusanina laa taqnatuu min raxmat illaah
maxaa yeelay inna allaha yaghfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyada waa dhaafaa dhammaantood waa dhaafaa dembi uusan ilaahay dhaafin ma jiro shirki baa u weyn dembi la galo hadduu addoonku ka soo noqdo ilaahay waa dhaafaa saas daraaddeed baa aayadda ka dambaysa alla wuxuu yidhi wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lah soo noqo irriddu waa kuu furanta allana towbadaada waa ku farxayaa waana ku saamaxayaa ha isdhihin haddaad khaladkii gashay khalad kale ha sii gelinoo ilaahay kuu dembi dhaafi maayo nabiyullaahi yacquub calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu wiilashiisa la hadlahayay fii suurati yuusuf alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala inooga sheegay nabiyullaahi yacquub inuu wiilashiisa ku yidhi kactaga oo yuusuf soo raadiya fataxasasuu min yuusufa yuusuf soo gooba walaa tay'asuu min rawxi illaah ilaahay naxariistiisana ha ka quusanina innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun ilaahay naxariistiisa waxaa ka quusta oo keliya oon waxba ku lahayn dad gaala ah inta aadan gaalnimo gaadhin naxariista ilaahay tabaaraka wa tacaala waxbaad ku leedahay maxaa yeele naxariista rabbi waa ka guda weyntahay cadaabkiisa cadhadiisana rabbi tabaaraka wa tacaala waxaa ka guda weyn ridihiisa iyo naxariistiisa ka guda weyn cid walbay waasic u taho rabbi ugu talagalay tabaaraka wa tacaala sidaa daraaddeed soo noqo nabiyullaahi ibraahiimna calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markay malaa'igtu ugu bishaaraysay wiilka isagoo islaantiisuna madhalaysta awday tahay asaguna da'ba yahay ayaa wiil loogu bishaareeyey markaasuu wuxuu yidhi keef say ku imaan kartaa waxay ku dhaheen ibraahiimow ma naxariista rabbi baad ka quusatay markaasaa nabi ibraahim wuxuu yidhi man yaqnatu min raxmati rabbihi ila addaalluun oo yaa naxariista rabbi ka quusta dad lunsan mooye ma cid kalea naxariista rabbi ka quusata mahma kaana alamru quusad ma jiro wax kastoo doonayso mataalibtaada ka mid ah jidkeeda mar ilaahayna kaasho tala saaro ku kalsoonow laakiin marnaba haysdhihin waxani ma suuroobi karo dunuub haddaad gasho si kasta ay tahayna soo noqo ilaahay u toobadkeen tabaaraka wa tacaala waa arrin halisteeda leh inaad heerkaa gaadhood naxariista rabbi ka quusato waxaa dhanka kale iyadana ka soo horjeeda in aad acmaashaada iyo daacadaada iyo khayrkaaga intaad ku kadsoonto aad ilaahay makrigiisa aamin ka noqoto iyadana waa dhanka kale innahu allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay makriga alle tabaaraka wa tacaala waxaa aamin ka noqdo keliya dad khasaaray marka labada khad midna ha u dhicin dhanka inaad naxariista ka quusatana ha aadin dhanka inaad ilaahay makrigiisa iyo cadaabkiisa isdhigatood aamin ka noqotana ha aadin khadka dhexdhexaadkaa mar waa inaad cabsi qabto dadaalna qabto rajana qabto rajo qab cabsina qab khadkaasaa la rabaa in lagu socdo saddexdaa arrimood marka waxaa la doonayaa inaynu iska ilaalinno sifaadka rabbiya khasaa'istiisa ha ku qabsanin hana isku dayin inaad sheegato allah amarkiisa iyo sharcigiisa shakiyuusan kaa gelin yaqiini oo siday tahay u rumee si kasta haddaad khalad iyo dunuub u leedahay ilaahay naxariistiisa ha ka quusanin ee dadaal la imo oo safxa cusub furo ilaahayna u